Somaliland idan waxay u qaadanay dimuqraadiyad dimuqraadiyadu waxa u badan way xanaf badan tahay ma naqaano dhaqankeena ma aha mararka qaarkood waxay dhigaysaa waxayna u baahan iyo fawdo sanad walba waxaan ku jirnaa campaign waa la isku dhacaa oo waa la iscaaya oo waynu ku colownaa oo ma naqaano waxa laba marka laga baxana waa isku haraamayna inagoo tiyoora ka busba tikada soo galaysa marka waxaan idin sheegayaa horta xisbiyada iyo cidda ka madaxdii wuxuu wada dadkeeni waa wada saaxiibo dadkan waa idinku celinaya cabdiraxmaan ciro iyo aniga iyo faysal iyo gaboose iyo meel kasta dheh waa dad wada saaxiibo oo mid colaad dhexda ka dhex wargeel baa sahankiisa la isku qabta wargeel maanta saanka halkaa loo diro war waa afduulno col baa joogay ka daa war halkaa roobkeedu waa geed xunta fusheelada ka daa inta lagu murmaya waa intaa in laago war dalka saasa u roon iyo saasa u roon waxaan ka xumahay dhalinyarada iyo dadka badan ee caadifiinta ay ku coloobaan oo ay colaad xubin dhex marto oo dad inaga dhintaa waa ayaan daro waa nusqaan ku sawiran madaxda oo dhan inta hogaaminaysa ay ku ceebeysan tahay oo dembigeeda leedahay waayo dadku iyaga ay maqnay uma baahanin inuu qof ama neef oo inaga dhaawacmo ama inaga qoonmo waa ayaan daro reedaad mareero dee waxaa haysataan marag aan cidid ku qabsan marag aan cidina cid ku qabsanay idinku intaa noo sheegteen laydku wada raacsanyay bariga galbeed Somaliland ayaa dee leedihi gobolkii suldaanada gobolkii talada gobolkii hidaha iyo dhaqanka gobolkii golayaasha war haddana waxaasoo dhan sheegateen dee dadka wuxuu sheego oo idinaha idinka muuqato dadka kalena waxaa tira waar walaalaada wadanahay ma oloobayne haymada keeni soo ceshan haddii maqaaxii magaalada reerreer loo kala duwo haddii shirka la qabanayo reerreer loo kala fadhiisto haddii degdegba loo kala fadhiisto ogoba waxaad beenaysaa waa talaxumadu ogo dushay tegaysaa kursigu waa meerto iminka waxaan isku afkaranaya doorasho waynu ku coloobay dad baa laga dhintay waa yandar doorasho way imanaysaa waa qasab sidaynu u qabanaa wax habeen lagu dhamayn kara fahaata hal lagu dhamayn kara ayaa waxaasoo dhan ugu haystaa waxaa leeyahay doorasho way imanaysaa iminka xisbiyadii urradii waa ordaaya oo le annagaa 10 sano mudan horta annaga hada la siiyo ta kalena way ku xigaysaa waxba ka dambayn mayso waayo waxaan u baahanahay diiwaangelinta ku baxda xisbiyada inta madaxweynaha lagu galo dalku ma qaadi kara barba diiwaangelin doorasho wareer ma wada qaadi kara waa la isu dhaweeya marka waxaan leeyahay ka soo socdoona waa naanidaada jirin dalka ka joogowna isku sii dhajinin kow ka ahado waa laga arkaa inaan waxaan lagu leeyahay war ma waxaan tahay baan isku haynaa walaal ma waxaan tahay baan isku haynaa anna iskuma dhajin karo qaran baa ku taaganahay ka soo dayoona waa qaban doontaa marka waxa weeye aan musaafirada hablaha caynaha laga barina sodonaha afka laga barina shirka inay ka hadlaan waa foolxuma inagu taala af Soomaaliga wax ku hadla sodoq ka hadashay inaan ka hadlay jirto sudaanka adoon ka caya kuma jiro waa maxay waxa dadka ku dhacay waxaan doonayaa inuu taa ka baxro haddii dowladda isla adduunka oo dimuqraadiyad u galaa inagoo walaalaa oo kaftamayna oo shaxo kala ciyaarayna oo dad iska maaragtay dee walaalaa oo taa u soo dirayna noqon oo ay ka saarro cunfiga iyo waxa jira mise frinteedu kula wataa oo dowladda dalka mariyo anigu doorasho diyaar baan ah waqtigeeda markii u horeysay lagu soo fikiray ku qabanay oo aan hagarasho lahayn cunfiga waa xaaraan xagga dowladda cunfiga inuu keeno waa xaaraan laakiin marka booliska la shido ee xiriir soo weeraro ee xafiisyada weeraro dee waxay nagu dhacay la kala garanayo adiga nafteeda ninka mudaharaadaya calankiisa ha qaato waa madaxweyne xubbaata waxba ma taray waa lagu bedelayaa waa la qoray aan leer soo jiido hada lagu dheer laakiin naga daadee farqeynaa dhacmaan diyaara